waxaan rabaa wax yar inaan ka hadlo dhibaatooyinka qaadka uu leeyahay. waxaa la yidhaahdaa shayga maandooriyaha ah, maandooriyaashu waa laba qaybood. mid qofka jirkiisa ayaa addictor ku noqda, macnaha qofka nafsiyan ama dareenkiisa wuxuu dareemayaa in wax ka maqayn. midna qofka isaga oo dhan baa wuxuu ku noqdaa addictor ku noqda oo la qabsada oo aan ka fog karin. qaadka waxaa la yidhahdaa keliya nafsaani ma aha, jirna ma aha, shakhsiyadda qofka oo dhan baa addictor ku noqota. dhibaatooyinku leeyahay marka waxaa ka mid a qaybo nafsaani ah. naftu waa dareenka qofka, waa shucuurka qofka iyo mid jirka ah. dhibaatooyinka nafsaaniga waxaa ka mid ah qaadku 3 darajo maraa, 3 darajo ayuu maraa. darajada koowaad qofku markuu cunayo 3 dhibaato ku dhacda. wanaag buu u malaynaya laakiin waa dhibaato. midda ugu horeysa waxaa weeye qofku inuu dareemo wax la yidhaahdo farxad iyo hadal badni, inuu sheekeeyo uu rabo, iyo inuu qofku dareemo inuu uu leeyahay wax la nashaad jismi ah, nashiid qof oo firfircoon inuu yahay oo wax kasta qaban kara inuu yahay. taasaa ku dhacda. waxaa kale oo ku dhacda qofka wax la yidhahdo daa'ul cadama. daa'ul cadama waxa weeye qofku inuu isla weynaado oo u malay inuu yahay boqorka adduunka oo dhan. waxaa kale oo ku dhaca qofka wax la yidhaahdo tarkiiska, inuu u maleeyo inuu dadka ka caqli badan yahay oo wax kasta uu focus garayn karo oo wax kasta uu concentration ku samayn karo oo uu maalan waxa uu tooganaya iyo waxa uu rabo inuu ka hadlo uu isdhaho si fiican baad u qaabayn kartaa. saddexaas dhibaato iyuu qofku sameeyaa. marka qaadku dhammaado qofka waxaa ku dhaca 3 dhibaato oo kale. waa markuu saa u dhammeeyo kow waxaa ku bilowda wax la qalaq. qalaqu waa walwal, ka'aabadu waa buufis baa qofka ku dhaca. waxaa kaloo ku dhaca dhibaato la yidhaahdo wax la yidhaahdo inuu qofku dareen wax la yidhaahdo al-inziwaal aw wax la yidhaahdo al-ibticaad can innaas, dadka inuu ka dhex baxo oo uusan la sheekaysanin. ninkii hadalka badnaa ma hadlayo, wuu isduuduubayaa, dadkii wuu ka cararayaa, dadkii wuu ka dhex baxayaa. waxaa kaloo ku dhaca wax la yidhaahdo wax kasta oo shahiye ah oo dareen ah, ama ha noqoto cunto ama ha noqoto hurdo oo raaxadiisa ah yaa qalqal ka gelaya. cuntada si fiican uma cunayo, hurdada si fiican uma seexanayo, qofka saas ku dhacaysa. waxaa kaloo ka dhumay wixii dhihi jiray tarkiiska, wixii hadda uu focuska dhahaya waa kala yaacaya, tashatud baa ku dhacaya, maskaxdii oo dhan baa meelaha haabaysa. taas waa markuu dhammeeyo. markii qaadku jirkiisa ka baxo qofka waxaa ku dhaca waxa la yidhahdaa aljunuun caadi ah, waali caadi ah qofka ku dhacda. junuun linficaali bay dhahaan carab. iyagaa naga horreeya, yamantaa nooga horreysa qaadka, iyagaa naga yaqaana. aljunuun linficaali waxaa weeye qofku inuu dareemo qof waalan inuu yahay. wuxuu rabaa inuu wax dilo, wuxuu rabaa inuu isagu isdilo, wuxuu rabaa inuu dagaalamo. waa artay dumarka qaadka ragooda cunaan waxay ku leeyihiin markii qaadka uu waayo qofka waa violence, wuu dagaalamaya, wax kasta waa burburinaya, lalama hadli karo, dharbaaxada ka soo horeysa, ilmihuu baabi'inaya. waa qof waalan weyn. intaas waxaa sii dheer jirkaaga qaadku waxa uu gaarsiiyo anuu idinma tilmaamay. calool xanuunka iyo qabsinada iyo beerka iyo jirkii iyo qofka xataa inuu jirkiisi baaba'o oo nafaqa xumo ku dhacdo oo asaga dhan uu baaba'o oo uu noqdo qof dadka ka duwan oo qofka qaadka cuna markaad aragtid aad ka naxdo. waxaan su-aasha ugu dambaysa weydiinayaa, yaa la weydiinayaa qaadka inuu xun yahay inuu fiican yahay? waxaa la weydiinayaa midka qaadka cuna ma aha, midka qaadka cuna midka xiriirka la leh. ninka qaadka cuna xaaskiisa weydiiya qaadku inuu xun yahay iyo inuu fiican yahay. gabdhihii waxay maanta taagan yihiin ninka aniga iyo qaad islama kaana qabayo bay taagan yihiin. waa qofka dareemay dhibaatada qaabku leeyahay. waxaa qaadka dhibkiisa dareemi kara qofka mas-uulka ah ee meel ka shaqeeya ee madax ka ah ee shaqaalihiisu ay qaadka cunaan baa dareemi kara. mas-uuliyad xumada qofka waxaa dareemi kara ilmaha waalidkii qayilo ayaa qaadka la weydiinayaa. marka walaalayaal, waddan gaalo wax nologa soo musaafuriyey oo la rabo maskaxdeenna iyo caqligeenna iyo diinteenna iyo adduunyadeenna iyo mas-uuliyadeenna in lagu baabi'iyo aan iska ilaalino, ilaahayna aan ugu dhowaano. maanta nebi maxamed sallallahu alayhi wasallam hadduu gurigaaga soo booqan lahaa ninka noogu qaadka jecel qaadka wuu qarin lahaa. asalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu.